kusoo dhawaada warka kala sama TV qodobadaan idin hayna waxaa kamid ah dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudiga socdaalkiisa Turkiga iyo qorshaha diyaaradaha Bayraktar uu ka iibsanayay dalkaas xilli dhiigii uu daadiyay ee wariyay caanka ah Jamaal Khashoggi wali uu ku dul hagooganayo isaga maadaama lagu eedeeyay inuu ka dambeeyay dhul gariirka ku dhuftay dalka Afghanistan 1000 qof ay dhimashadu gaartay wararkii ugu dambeeyay ayaan eegi doonaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxa la sheegay safar qarsoodiya inuu ku tagay Israa'iil xilli la ogaa inuu ku sugan yahay wadanka isku tag Imaaraadka Carabta kulan qarsoodiya oo dhacay ayaan fiirin doonaa Itoobiya ku dhawaad 10 Soomaali ah ayaa lagu dilay sida wararku ay sheegayaan xogtii ugu dambeysay ayaanu eegi doonaa qeybaha dambana waxaan ku soo gudbinaynaa agaasimaha sirdoonka Soomaaliya Mahad Salaad oo iska xiray ciwaanadii uu baraha bulshada ku isticmaali jiray sida Facebook iyo waliba Twitter-ka sababta ka dambeysa arintaas ayaan warbixin ka eegaynaa ugu horeyn hadda nagu cusub tahay subscribe dheh oo hel dhacdooyinka dalka qaaradda iyo deegaankaagaba muuqaalka like saar oo sii share garay haddii aad awooddo waad mahadsan tahay aan ku bilowno dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya Maxamed bin Salmaan ayaa waxa uu ku wajahan yahay wadanka Turkiga halkaas oo kulamo uu la yeelan doono marka uu gaaro magaalada Ankara madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan diyaaradaha Bayraktar inuu iibsanayo ayaa Maxamed bin Salmaan wararku ay sheegayaan waxaana isbedel uu ku sameeyay hanaankii siyaasadeed iyo midii dhaqan dhaqaale ee dalkiisa marka loo dhiibo xukunka dalkaas Maxamed bin Salmaan ayaa safar ku joogay labadii cishe la soo dhaafay magaalada Qaahira ee caasimadda dalka Masar waxaana magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga kulankiisa madaxweyne Erdogan uu kala hadlayaa sida la ogaaday iibsashada diyaaradaha Bayraktar loo yaqaano lama oga sababta ka dambeysa arintan xilli ninkan wali ay dul hoganayso dhiigii uu daadiyay ee wariyay caanka ah Jamaal Khashoggi oo bishii Oktoobar sanadkii 2018 4 sano ka hor lagu dilay magaalada Istanbul safaaradda Sacuudiga ay ku leedahay halkaasi waxa lagu eedeeyay Maxamed bin Salmaan dhaxal sugaha boqortooyada Sacuudi Carabiya inuu ka dambeeyay abaabulka iyadoo wariyahaas Jamaal Khashoggi meydkiisa la jarjaray hilibkiisa isla markaana jawaan ama boorso lagu shubay sida wararka baaritaanada la sameeyay lagu ogaaday kol hore bal intaas hadaan uga gudubno wararka safarka dhaxal sugaha Sacuudiga uu ku tagayo dalka Turkiga bal aanu eegno war kooban oo ku aadan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wararka la helay waxay sheegayaan in safar qarsoodi uu ku tagay wadanka Israa'iil xogtan ayaa ah mid kooban warar kala duwan oo la helay ayaa sheegay in wafdigii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ee gaaray dalka isku tag Imaaraadka Carabta ay kala hareen arrimo xasaasi ah ayaana iminka la soo tabinaya inay jiraan la taliyaha amniga qaranka Xuseen Sheekh Cali Xuseen Damuumaaye agaasimaha maamuuska madaxtooyada iyo agaasimaha hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Mahad Salaad ayaana wafdigaasi qayb ka ahaa waxaase la sheegay in lagu karantiilay hotel ku yaala magaalada Abu Dhabi wafdigaas xog ay heshay Kalsama TV ayaa sheegaysa in kadib madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud diyaarad qaas ah ay u qaaday dhinacaasi Israa'iil caasimadda magaalada Tel Aviv iyadoo warar kala duwan ay ka soo baxayaan safarkaasi qarsoodiga ah inkastoo xogo badan aan la helin oo ku saabsan wixii uu Israa'iil madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh kala soo kulmay ka hor inta aan dib lagu soo celin magaalada Abu Dhabi barta Twitter-ka saacado ka hor waxa xogahan lagu faafiyay iyadoo dadyo kala duwan ay soo tabiyeen war iyo wacaal ayaa si laga waayay madaxweyne Xasan Sheekh iyo wafdigiisa tan iyo 3 cisho ka hor markii ay tageen dalka isku tag Imaaraadka Carabta bogga Twitter-ka qoraalada lagu faafiyay ayaa badankood isku mid ahaa waxaana ay ka mideysnaayeen in safarkaasi qarsoodiga ah uu madaxweyne Xasan Sheekh ku tagay dalka Israa'iil waraya sheegaya in shir qarsoodi uu dhex maray madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Naftali Bennett lama oga waxyaabaha gaarka ah ay ka wada hadleen labada mas'uul ilaa hadda ma jirto war ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya oo looga hadlay arintan hoose ee soo ifbaxday iyo waxa ka jira xilli hore looga shakisanaa xiriir gaar ah oo ay yeesheen dawladii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud hogaaminayay 2012 ilaa 2017 iyo ra'iisul wasaarihii maamulka Israa'iil xilligaas ee Benjamin Netanyahu markana aanu eegno dhul gariir 1000 qof ay ku dhinteen ayaa la soo sheegayaa in uu arbacadan maanta ah garaacay gudaha dalka Afghanistan qalabka Richter scale-ka loo yaqaano
ee dhulgariirada lagu cabiro ayaa waxa uu sheegayaa in 6.1 uu ahaa mid gaaraya dhulgariirka waxaana la sheegay in dhulgariirkaas qaybo badan oo Bakistaan iyo Hindiya xitaa laga dareemay baaxadda uu leeyahay hay'adda dhinaca dhulka ee dalka Mareykanka ee USGS ayaa sheegtay in dhulgariirka ay ku nafwaayeen boqolaal qof oo kala duwan deegaanada ay joogeen 600 qof ayaa dhaawac soo gaaray sida uu sheegay agaasimaha hay'adda maareynta musiibooyinka ee Afghanistan Sharafuddin Muslim oo shir jiraa'id warbaahinta u qabtay magaalada Kaabul xilli uu kula hadlayay Salaaxuddin Ayyubi oo ah wasiirka arrimaha gudaha ee dalka Afghanistan maamulka Taliban ay hogaamiyaan waxa uu sheegay in 44 kiiloomitir meel u jirta magaalada Qost bariga dalka Afghanistan uu ahaa meesha ugu daran ee dhulgariirka uu garaacay ku dhawaad 100 guri ayaa dumaysada la sheegay iyadoo dadka badankood dhismayaasha dumay ayaa dhismaha dumay waxyeello ka soo gaartay agaasimaha hay'adda maareynta musiibooyinka Taliban u qaabilsan maamulka Afghanistan Maxamuud Qaasim Xaqani waxa uu sheegay in 100 qof ay ku dhinteen gobolka Baktiya la yiraahdo ee dalka Afghanistan 250 qof ayaa goobtaasi kaliya ku dhaawacmay tirada guudna waxay ka dhigaysaa in 300 dhimasho iyo dhaawac dad ka badan ay gobolkaasi ka soo gaartay Afghanistan ayaana dadka loogu baaqay in ay masaajidada isugu soo banaanbaxaan si baa la yiri loogu duceeyay dadka waxyeeladu ay gaartay ehelkooda Kalsama TV ayaa daawanaysaan bal markana dalka Itoobiya wararka ka imaanay waxay sheegayaan in Soomaaliya xoolo dhaqato ahaa lagu dilay gudaha dalka Itoobiya gaar ahaan webi mara dhulka deegaanka Canfarta ee wadankaasi warar ayaa sheegay in maleeshiyad ka soo jeeda qoomiyadda Canfarta ay weerar ku qaadeen xoolo dhaqato Soomaaliya kadibna waxay halkaasi ku dileen ilaa 7 qof oo rayida wararka ayaa sheegaya in dhimashada ay intaasi ka badan tahay isla markaana meelo kala duwan ayaa dadkaasi lagu laayay dadka la dilay dhammaantood waxay ahaayeen xoolo dhaqato deegaanka Hillada Qoorka oo ku dhow webiga Awash ayaana la tilmaamay in dadkaasi lagu laayay sidoo kale wararku waxay sheegayaan in kooxda weerarka fulisay ay dhaceen xoolo fara badan oo gaarayay ilaa 4 neef oo geela ilaa hadda ma jiro waxaad loo ka soo baxay maamulka labada dhinac ee Canfarta iyo waliba tan Soomaalida ujeedka maleeshiyadka Canfarta ayaa inay qabsadaan dhammaan deegaanadaas ay Soomaalidu ay gacanta ku hayaan isla markaana magaalooyin ay hore ugu sugnaayeen Soomaalida ayaa ay hore ula wareegeen ugu dambeynna daawadayaal haddii aanu eegno agaasimaha nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliya Mahad Maxamed Salaad ayaa waxa uu bilaabay arrin la yaab leh oo dadka qaarkood shaki ka abuurtay marka la eego tallaabadaas uu ku dhaqaaqay saacada ka hor waxaa laga waayay baraha bulshada ciwaanadii uu ku isticmaali jiray Mahad Maxamed Salaad ee Facebook iyo waliba Twitter-ka agaasimaha Niisa Mahad Salaad oo ku sugan wadanka isku tagga Imaaraadka Carabta qaybna ka ah wafdiga madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa mar kaliya la waayay baraha uu ku isticmaalayay bulshada magaciisa isla markaana ay ahaayeen kuwo haystay calaamadda aqoonsiga ama blue tick loo yaqaano Mahad Salaad ayaa dhaleeceyn u jeedin jiray mas'uuliyiintii hore isla markaana mucaaradka kuwa ugu afka dheera ayuu kamid ahaa waxaase hadda uu wajahaya eedeymo culus oo ay ka mid tahay dilkii loo geystay Ikraan Tahliil Faarax oo lagu eedeeyay in uu isaga qayb ka ahaa abaabulkeeda agaasimaha Niisa Mahad Salaad ayaana loogeyn sababta keentay in uu ka saaro barihiisa bulshada ciwaanadii uu ku isticmaalayay magaciisa isla markaana 5 sano ee la soo dhaafay aad wax uga qori jiray nidaamkii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dalka ku hogaaminayay warka ugu weyn ayaa ah in Mahad Salaad uu qudhiisa qaatay go'aan ah wada in laga saaro barihiisa bulshada sababtana wax lagu sheegay oo dadka qaar ay leeyihiin inuusan doonayn in la arko qoraaladii uu ku daabici jiray barahaas bulshada uu magaciisa ku isticmaalayay muddooyinkii dambe markii loo magacaabay xilka agaasimaha Niisa ayaa warkiisa la waayay iyada oo eedeymo culus xitaa iyadoo loo jeediyay uu ka aamusay in uu ka falceliyo Fahdi Yaasiin Xaaji Daahir agaasimihii hore nabad sugidda sirdoonka qaranka Soomaaliya wareysigii dhawaan uu bixiyay waxa uu sheegay in Mahad Salaad uu ka dambeeyay qafaalka loo geystay Ikraan Tahliil Faarax isla markaana uu sabab ka ahaa sida uu ku yiri Fahdi Yaasiin in Mahad Salaad gabadhaas la kaxeeyo kadibna al-shabaab loo geeyay oo Mahad Karatay nin la yiraahdo uu ka dambeeyay dilka gabadhaas waa sida uu Fahad ku eedeeyay Mahad Salaad
ma jirto war ka soo baxay taliska nabad sugidda hoggaankeeda iyo xubno ka agdhow Mahad Salaad oo looga hadlayo arrinta sababta ka dhigtay in uu barihiisa bulshada magaciisa uu ku isticmaali jiray Facebook iyo Twitter-ka in gabi ahaanba hawada uu ka saaro waana mid keentay shakiga ay dadka qaar ka qabaan maadaama taliska nabad sugidda loo dhiibay isla markaana eedda ku hagoogan iyo in uu weli ka aamusan yahay jawaab celinta eeddaas saameynta leh ee dilka Ikraan Tahliil Faarax inuu ku lug lahaa guud ahaan daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa wararka Soomaalida iyo caalamka kala Sama TV ayay nagala socoteen daawadayaal intaan wararkan oo kale dib isku arki doonno nabadgelyo